degdeg maxaa ka nasiib daran haddii ay maxkamadu kugu xukunto dil toogasho sababtuna ay ahayd adigoo qaando bariisabeed ka bursanayo naf adig kula mid ah yaab iyo makaab ayaan maalin walba u joognaa maanta waa xukun maanlaawihii ugu nasiibka darnaa ee soo mara bulshada KGS كل وعنه ونكسن داود يا الله كان هذيك داون إنسان ومقام ميديا هدية تامر كوجور استفضل بيجك يفلو صوره مقال كان داون إنسان اللايك صار سين شرقري صاحب بدأ هذا لو ذاك ما سين داوده صاروا مربع هدية داون السواح سين عرس لك عقد سنة إن بيجك يسوفلو جريسيد سياو قارنو بقول كنا فلاوريس وحير أكل يا نوغني من كم من نقص صاحب بدأ عسوان جارسينا يا بقول كنا فلاوريسك ما سيردين هجاج أي نكون بلاونه ويل كان دليرada halkan kaaga muuqda aad u jeedaan magaciis waxa la yiraahdaa Maxamed Cabdiraxmaan Jibriil Aadan waxa uu dilay wiil marxuum lagu magacaabo Aadan Maxamed Isxaaq wax uu dilay ama naftu u dhaafiyay ayaa ah wax maskaxdaada iimaanka aysan deeqaynin ninkan markaasi eedeysanaha oo maxkamaddu koonfur galbeed ay ku xukuntay dil toogashada ah ayaa waxa uu ka tirsanaa askarta ciidamada xoogga dalka isagoo oo markaasi meel ayna ka jirto abay ama sab qof walba sida u yaqaano ayuu agmariyay waxa uu ka dhax arkay inuu halkaasi uu isaga markaasi kala hagi karo maadaama qori AK47 uu ku habeysna balse waxa uu sameeyay iridda ayuu istaagay isagoo dadka kala saanaynayo kuwa ilmahana dib u celinaya dadka waaweyn gudaha u fasaxayo laba wiil oo dhalinyaro ah oo markaasi uu yahay mid kamid ah marxuumka liiraado Aadan Maxamed Isxaaq ayaana markaasi goobta soo gaaray isagoo oo doonayo inuu sabtaasi wax ku cuno magaalada Baydhabo bartamaheed ayuuna markaasi dilkan ka dhacay inkastoo hadda uusan ahayn sanadkii hore 2024 bishii 12aad 21deeda ayaan jeclahay inuu hore kiiskaasi u dhacay balse maanta ayaa maxkamadda koonfur galbeed markaasi magaalada Baydhabo maxkamadda markaasi ka soo muuqday wiilkan dhalinyarada ee sawirkiisa halkan kaaga muuqdo walaalkiis ayuu nafsada u dhaafiyay wax aad adigu markaasi xitaa aadan markaasi nafsadaada aadan markaasi aysan haweysanaynin markii halkii uu ka waday albaabkii uu istaagay uu markaasi dadku kala hagayay labadan dhalinyaro ah markii ay soo gaareen wuxuu u sheegay inuu halkaasi isaga dhaqaaqaan balse iyaguna ay markaasi ku amar taaglayeen oo ay u sheegeen inaysan asiga waasha aysan qusaynin oo iyaga ay doonayaan in ay sabtaasi wax ka soo cunaan balse murun dheer kadib wiilkii ayuu leef garaacay kadibna wiilkii yaraawo uu xanuunsaday intuu dhagax uu markaasi raadsanay ayuu xabada markaasi qabasiiyay waxa uu dilay qaando bariisa ay wada cuni kareen xitaa hadii familkiisa ama markaasi loo idman lahaa shaqadaas waxay ahaan lahayd wax aad markaasi xitaa il ama markaasi qiil loo raadiyo balse laakiin meel aan loo dirsan ayuu galay wax aan loo dirsan ayuu sameeyay maanta maxkamadda koonfur galbeed ayaana ku xukuntay dil toogasho sida aad ka warqabteenba koonfur galbeed maalmihii dambe waxa ka socday in qofkii qof dila hore tiirka laga geeyo ninkan ayaa maxkamadda kiiskiisa maanta u fariisatay isla maanta ayayna ku fulisay ama aan raadey afwan isla maanta ayay markaasi ku xukuntay dil toogasho kaliya waxa dhiman qisaastii marxuun Aadan Maxamed Isxaaq in loo jaasiyo ama markaasi loogu gudo cid ama reerka iyo waliba sidoo kale maxkamaddu waxa la isla gartay in dil toogasho lagu xukumo eedeysane Maxamed Cabdiraxmaan Jibriil Aadan oo ahaa mid hore u dilay wiil dhalinyaro ah isagoo oo ka bursanayo qaando bariisa oo isagana markaasi uusan xitaa laga yaabo inuusan calafkiisa ahayn maalmihii dambe dilalka markaasi ayaa soo badanaya kuwa si fudud qofka nafsadiisa loo dhaafiyo tanina waxay ka mid tahay dhacdooyinka maalinlaha ee gudaha dalkeena ka dhaco magaalada Baydhabo ayaa maalmihii dambe waxa ay noqotay meel hadii qof uu dilo jawaab degdeg ah laga bixiyo kadibna dil toogasho lagu xukumo qofka dilay hadaba daawadayaal sidee u aragtaa in qof wiil dhalinyaro dhan nafsadiisa loo gooyo qaando markaasi bariis ah uu rabay inuu markaasi halkaasi uu ku cuno xitaa laga yaabo in dadkii sabta ay dhiganayeen ay dhihi laayeen bariis miyaa iska baxla dhaw isaga taas ayaa laga baaqsan karay inuu xabad uu ku rido balse ugu dambeyn waxa uu markaasi maanta maxkamadda koonfur galbeed ay ku xukuntay isagana dil toogasho cadaaladda mar walba hasareyso daawada hadii aad halkan la soo gaartay waxa tahay qof qalbi wanaagsan waxaan si naxariis leh kaaga codsanayaa beedkayso follow garisi aan gaarno 100,000 followers Ramadan Kareem ayaan idin leeyahay saaxiibayaal